صاحب معنا عبد الفتاح برشاوي ولكن غالية ما شاء الله هستي هذا وادميني كل إلاب وهلي صدري إن شاء الله مركب بيزي ساس ولصعو هستنا هذه كي بدعلنا ببيزي كل إلاب والله بالله يأكل كيزو يأكل هستوا كنا بح مغالكو كلي أنا ودمن إن شاء الله مغالك نهدا شغلنا إن شاء الله. عبد الفتاح بلشاوي 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 بلشاوي عبد الفتاح 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 بلشاوي دجي بروفايل كاغا بلشاوي صار جوجل قال مقعيسه صبر بقورك واتساب يا وايه بلشاواتك سو بربر دجي بروفايل كاغا بلشاوي صار جوجل قال مقعيسه صبر بقورك واتساب يا وايه بلشاواتك سو بربر لا شربوته ايغا سوماليدا laga wata دجي بروفايل كاغا بلشاوي صار جوجل قال مقعيسه صبر بقورك واتساب يا وايه بلشاواتك سو بربر كان ادي بني سلامي هداهمين كنت مين وناس دمان كنت مالين وناس wax kasta ay ku tahay wanaagsan falan deeta markuu ugu horeysay channelka Abdi Bulsho official waxa soo shmad kaga codsanay like subscribe share comment taasoo waxay tadii regelin sidoo kale dadka aan fikiraysa in comment ahaan igu soo qodho sidoo kale Instagram-ka aad soo booqatid saaxiibaan kar ku soo aragteen waxa ku soo aragteen fanaaniin fara badan maxaa ka cusub fanka fanaan baa isku dul istaagi doonaa يعني waxa jira heeso badan oo hadda dabka saaran oo soo karkarinayo oo raab ah oo cala fanaan laba heeso saddex heesood bahad oo diyaarsan heesaas hadda la soo wado goormay soo baxayaan maxay yihiin fanaaniinta meesha ku soo aragteen kulligood kama wada gaarino sida daraadeed waxaan ka sameyn doonaa baartiyo kale maadaama muuqaalka hadda aan duubayo aan barnaamij kale aan rabaa saddex qodob kale aan kaga sii hadlo sida daraadeeda waxaan maanta diiradda saareynaa Cabdalla Rasaas maadaama uu yahay fanaanka fanaaniinta ama raabirinta ugu da'da yar taalatin uu leeyahay asaga marka ugu horeysa hormarina laakiin intaan muuqaalka u gudagelin muxuu soo wadaa Cabdalla Rasaas inaan u gudagelin waa sheeko cajiib leh ka hayaa waxa marka hore rabaa in halkaan saddex qodob ka iraado qodobka koowaad oo ahaa arintii maalmahan taagneed aniga walaalka Sharmaaka Cabdi Naasir Maxamed shalay baa wada hadalnay wada hadalkeena ka baacdi waxa weeye inta koolka ku jirnay hadalku yiri ugu horeeyay baa markiiba wuxuu ahaa mid aniga markii mowqifkan qabo dhama bedel kaas oo ahaa hadii wax jira aniga ilo wadaagtay ee sabab ah marka hore YouTube u fariisata arintaas waxaas baaga hadlaysaa intaas baa marka aniga deeqdo markaas waxay dhama dib loo laabtay daraadeed asoo ana kool ku jirnaa baa xataa waxa way labadii muuqaal baa xataa barefin magal dileed baan ka YouTube-kayga waxa kale aad uga madacinayaa inta isku dayday inay sharmal xiriirna ma aniga soo xiriirana waa ku maasantiin dadaalka aad sameeysan inkastoo aniga asagaba ay naga dhamaatay oo wax weey anaga aan dhameysanahay wax anaga iswacnay anagu asgaranayba marka taas baan in ka leeyahay marka arinta sharma waxa weeye qof waxa weeye bil aadan oo Ilaahay abuurtay wax laga weydiinayo ma jirto waxaana jirtay inay dad naga dhex shaqeeyeen hal hamina weerarna ku soo qaaday ani sharma leen afirmasho qolna aniga la siiyay asaga afirmasho qadan la siiyay marka waxa uu sharwa hadalnay waxa weeye aan soo ogaanay cid waxaas dhan ka dambeysay insha Allah qofka waxa ka dambeeyay oo Rafiyaankana balani axad waxaan ku qaadayaa qofkaas u bahdilan oo waxa weeye khaladka uga ciqaabtiisa maray inaan insha Allah soo bandhigi doono hadii la idmo go'aan baan aniga walaalka Sharma kooda qaadanay dadkii naga dhex shaqeynayay hal iyo laba xataa dad aad u fara badan bay ahaayeen oo koox isku xiran kooxna Sharma waa cali qaybna aniga ila soo xiriiray ka bacdina waxa weeye farmasho khaldan soo siiyay oo aniga walaalka naga dhex shaqeeyay dadkaasna insha Allah goordhow waxa weeye waa arki doontaan habkan walaala unahay rasay ka helaan nafluhu marnaba ismahu karno nafiya hal quraynu nahay yo am حمرابي وانا ذا حبرتي مقلابي ابوان ولبو لايك هدراوي صاحب كيكا وعد فتاح بلشاوي اسايري وحكار اما ذا غاوي ام حمرابي وانا ذا حبرتي مقلابي ابوان لايك هدراوي وريا صاحب كيكا عبد فتاح بلشاوي
asaa yiri ciyaalkaanoo dhan qaawi qaawi sababta aan waxa weye u dul saaray heesta ama labada hees aan u dul saaray koolka waxa weeye in waxa aniga Sharban ku hadalnay muhiim ah inaad maqashaan sidaa daraadeed arrinta walaalkii saasaan ka leeyahay wax kasta oo dhex mar ama sax iyo khalad wixii doona haadaan waxa aniga asaga ugu kooban ama qof walba oo marka aan Sharma ahayn cid ma garanaysaa looga baahan yahay ka hadasho horta ma jirto taasaan ka leeyahay insha Allah dadkaasna waxaan runtii u leeyahay wallahi aad bay isku ceebeeyeen oo waxa ciwaanta ka dhacday laakiin waxa weeye lama ogeysiinayo ani Sharma ku balanay waxa weeye aan la socon xaaladooda aan soo bandhigi doona maalin amaanta ahayn arrinta marka taas halkaas aan kale qodobka labaad oo raba inaan ii guda galo waxa weeye maadaama aan saddex qodob baan ka hadlaya intaanan barnaamijkiisa u gelin qodobka labaad waxa weeye walaalkay ama saaxiibkay oo asagana aan heshiinay Cali Cadaawe waxaan meeshan ka salaamayaa brother Fatah Bulshawi baan yarashkina ninkaan mutaqaan in jiraan dad mutaqaana naga dhex shaqeynaya ama wax jira marka arrintaas waxa soo dhameeyay walaal Sharma boy aad baan ugu mahadsan brother iyo waxa jirtay dad badan oo aniga asxaabteeda ah in saasay markaas dagaal u ka dhaxeeyay waxaan isku dayay inaan asna barnaamijkaas aan ka soo gabagabeeyo taladii fikirka aan soo jeediyay walaalkayna uu qaatay sidaa daraadeed waxa ugu muhiimsanaa oo dagaalkooda muddo dheer soo socday wuxuu ahaa walaalkeen Jesse Boy waa boqortooyada ama raabarka weyn ee Jesse Boy xal dhan kolbay oo saarnaayeen muddo 18 daqiiqo bayna la hadlayay wixii horena waa la iska cafiyay oo yani siyaasada walaal ku yihiin insha Allah koolka labada caawn oo balansan waxa weeye eeki qanciyo qof kale insha Allah aan diirada saarayo oo asnaaska carada wax badan ka dhaxeeyeen asna insha Allah soo gabagabeyn doono sidaa daraadeed waxa maanta comment kaliya u furan yahay wax fahmi kara waxa weeye cidii WhatsApp-kayga la socotay weeye cid kale ma banaana taas waa laba qodobka saddexaad aan guda galay waxa weeye fanaan waxa jira kor soo qaaday heestaas marka hees waxay ahayd oo uu ku amaanayay Sharma uu ku difaacayay hees wax marka waxa ku jirtay aniga magacayga ku jirtay marka waan soo hadlay waxaan ku yiri heestaas maxaa magacayga ugu soo dartay waa ku qabsaday laba jeer hore waa ka soo hadlay walaalkay Lil Asto hadda Asto Boy baa la baxday oo maleynaya laakiin Lil Asto barnaamijka heestaada sababta aan aga hadlay anu aga falceliyay laba eray bay ahaayeen laba qodob bay ahaayeen hal talana waan siinay taladan siinay waxa weeye waliga hadii laba qof is dagashan yihiin dhaxdooda ha gelin qofna hala jirsan waayo hadii labadan bir heshiiyaan waxa weeye adin meesha waji kuma yaalo hadalka waxaan ku leeyahay waxa weeye heesta markaas oo inta isoo dirin ina isoo dirin baan jeclahay laakiin koor waxa isoo diray Samir Alfa fanaanka weyn oo taqaanaan waxay abtay heestaas magaca ku jira fiiri waan arkay heesta ma sha Allah aad baan helay qaabkii barnaamijka u socoto markaas koolka waxaan saarnay ninka la yiraahdo Cali Cadaawe waxa ay soo wacay isla Lil Asto laftiisa soo wacay waa ka qabtay koolka waxaan ku raacay ku soo celinay ninkaan ka qabtay markaan ka qabtay wuxuu walaal waxa la soo hadlay Cali Cadaawe wuxuu yiri heesta magaca Fatah Bulshawi ka saar waxa rabeen ay raadsi ilmihiina ku xiriirteen waa dhigi karay waxaan ku yiri saas ku leeyahay cod uu leeyahay markaas ii soo diray kabaad markaan arkay waxaan ku yiri saas aha okay aan ku dhimay walaal ma soo jecelahay u samee ama saa u jeceshahay iska samee maadaama marka hore aan ku dirin aan koran soo qaad adiga laakiin ay la gaclootay heesan aan arkay hadda aga bedelaysid waa isla meesha waayo marka hore aan warba ka meehin baan ku yiri magarad okay cali aan sheegay waxaan ku yiri warnin kaas uu sheegayay maxaa ka jira deedna wuxuu yiri kaas ku yiri ha bal codkan dhageysta marka sababta hadda ku soo wacaya taas walaal macaan fant meeshaan yaro magaciisa ku jiro fant oo dhahay Cabdi Fatah Bulshawi ma wacay waxa raba Cali Cadaawe ma wacay inaan ku caafiyo ma sugo inaan ka dhigo fant ade ina aad ka soo qatay aad baa ga xumaay laakiin waxaan rabaa inay tusaale ama 10 ku noqoto dad kalena saas ka noqoto ani calna kolba marka ku jirnaa adna waxa doonaysaa inaan magaranaysaa labadeen naga dhex shaqeyso sababaha ani Cali Cadaawe shino siyaabahan kale ahaayeen dad badan waxa jiray saan oo kale ama qaabkan kale sameynayay ama jeeb xanuun ha jiro ama qaabkan ha jiro oo hasira kana wax ka weey kala wax keelisa oo kale ha yiraahdo yani qaab noocaas way jireen marka tusaale ahaan yani bay tusaale kugu tahay marka walaalkii waxaan ku leeyahay taas aad baa ugu fududaatay barnaamijkaas waxa weeye laba qof waxa weeye oo markaa heshiiyay in waxa weeye tiraahdo u kala warqadada ugu heshiiskeena iyo heshiisnimada aan ogeyn taas baan ka leeyahay hadda hadalkaas hadhow khalad u fahantin waa ka raali gelinay walaalkay Asto Boy nin dhalinyaro oo xataa talent leh oo raabara laakiin waxa isku dada wariga maadaama aad fanaanta inaad gelin siyaasad ama in garanaysaa laba qof laga dhex shaqeeyo barnaamijyo noocaas oo kale ah inaad iska ilaaliso adiga iyo dhammaan dadka kula mid ah isku day mar walba marka fanaanta ama raga tahay inaad hadalkaaga uu cadaado aad la wajiilo noqon okay marka barnaamijkaas halkaas aga baxaya saddex qodob baan sheegayay barnaamijkaas oo gadagalaya heesaha soo socda
saan sheegayna waxa way muuqaal waddan ka sameyn doona heesa cusub soo socda Cabdilrasaas baan ka hormarinay Cabdilrasaas waxa uu soo socda 3 heesood saddexda heesood oo soo socda 2 hees oo kamid ah waxaan aaminsanahay noqon doona 2 heesood ee social media buuq badan ka dheeran doonta heesa kood waxay la soo qaadayaan gabar waan markii ugu horeysay Cabdilrasaas ay gabar heesa la soo qaadayaan heesa markaan dhageystay ama ereyada ku jirana waaba kuwa ugu badan oo laga falcelin doono inkastana jeclaan in hadda ka hor dhaco laakiin heesa marka ereyada maqlay inay yihiin wax magaranaysa buuq ka imaan kara inuu yahay heesa labaad ee Cabdilrasaas uu soo wado waxa weeye hees ee isla qaadayaan fanaan ka baxsan Muqdisho iyo gaar ahaan guud ahaan Soomaaliya ka baxsan inuu hees isla soo wadaan maalmahan waa wadnay isku xirka dhalinyarada dalka joogta iyo kuwa dibadda jooga ee fanaaniinta si yani heeso contact soo wada qaadi lahaayeen taasna way horgashay oo xalay soo dhamaatay sidaa daraaddeed kaliya waxaa dhiman inay officialkii fanaanka kale ee waddanka kale jooga soo duubo Cabdillah oo Muqdisho qaybtiisa ka duuba ka bacdina hal hees oo dhameystiran laga sameeyo marka hees saddexaadna way jirtaa uu soo wado oo ayadana waa ayna maqashiinaya oo intaas uu ii amray wax walbo aanan soo bandhigayna waa wax aan amarkeeda u haysto weeye sidaa daraaddeed heestan kale waxa loogu talagalay gabdhaha waa hees runtii aad iyo aad u wanaagsan marka bal heestan saddexaad ayadana aan isla dhegeysano الدنيا وعنه صامل مش موجود heestan weli meel lama soo gelin qaybtan waxaan ku yiri maadaama aad meel la soo gelin maxaa aniga igu soo dirtay markaas marka wuxuu yiri in aad dadka u sii sheegto anaaba rabo marka sidaa daraadeed heestaas inii soo gaarsiiyay qaybtaas يعني waa heestaas waa heeska hadda uu soo wado labada heesood aan sheegay oo kalena wuxuu la soo wadaa midna gabar buu la soo wadaa fanaanad ah oo Soomaaliya joogta laakiin ereyada ku jira marka arkay fanaanada lafka hees la wada markaan qiimeeyay ereyada ku jira inay kuwa buuq badan dhalin doona waxa ku soo haray heesta aan leeyahay wuxuu la soo wadaa fanaan dalka dibadiisa jooga Abu Cabdilrasaas hees la soo wadaa heesa runtii wax badan baa ka soo shaqeynay laakiin aakhir waa ku guuleysanay oo Ilaahay uu dhameeyay Cabdillah codkan bii fasaxay inaan umada la wadaago saaxib macaan Cabdifataax Bulshaawi walaalkay qaali ah ma sha Allah heestii hadda waa dhameynay kal ilaab waa lii soo diray insha Allah marka BBC saas ula soco heestan aadiyada kaga baadcelina BBC kal ilaab wallahi billahi ku dhaay oo kiiso waay ku dhaay heesto waa ka dhaxbax muuqaalku kaliya anoo dhiman insha Allah muuqaalkan hadda shaqo galeena insha Allah إن شاء الله هذا واسع أنا شيء يعني هسه هو دوبي عبد الله فنان كان أنا شيء كلي أفشل كذا لمن أفشل كانوا أفشل هلا عن قدر رجينا يا صدق هاي صوت عبد الله صوّانا وصدق هاي صوت كل يلا برنتي لمن فنانين تدع ديرنا حرجينا يا إنه يقول جاري دونان نول بنو نيدي استقف كل بنو سهر سكارسين كرا بنا مسنا هاي سياد رادد فنانين تكلا هسا كلا أساس حسها بدنا مقالة يكسر بين دونا أنت مقال كم مقال لم يكن بدون إحنا كثير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.